labadan gabdhood ee walaalaha ah tagitaanka iskuulku ma ahayn oo kaliya waxbarasho wuxuu ahaa caqabad ay maalin kasta u safri jireen masaafo dhan 15 kiiloomitir ayaa u dhaxaysay gurigooda iyo goobtooda waxbarasho ay dhigataa hadda laba gabdhood dhahan markaan iskuulka geynayay baabuur kiraaho islaameed saari jiray meeshaan magaaladii soo reeb 15 kiiloomitir hadda u jirnaa wuxuu jecel yahay inaan wax barano iskuulka aad ayuu noogu fududahay subax meel 15 kiiloomitir u jirta magaalada oo guri jirnay markaan meel furan tagay jirnay baabuur islaameed ayuu noo kiray jiray aabahood wuxuu lahaa hal riyo inuu gabdhihiisa u soo gaabiyo masaafada inay helaan waqti badan oo ay wax ku bartaan tamar ay ku riyoodaan iyo fursado badan oo ay ku gaaraan guul sidaas darteed wuxuu qaatay go'aan wax ka bedelay nolol maalmeedkooda wuxuu iibiyay geeliisii wuxuuna ugu soo gaday gabdhihiisa gaari awrtanadii markaan kala baxnay gaarigaas yarka inaan gabdhaha waxaan ayaga daraadoodan u iibi maadaama gaariga aan soo gaday oon keenana gabdhihii wixii wax ku baranayaan oo gabdhihii yihiin anigii aan inaan u wado aanan awoodin oo de shaqo kale iyo hawl kale miyigii ay iitaal waxaan iskallifay inaan ayagii baro iskuulkii ay ku aadaan ay uga yimaadaan ayaguna inay wax soo bartaan aan go'aansado markuu lambarka naga waayo macallimiinta maamulayaasha oo wacaa aniga masaafadaas aan soo galayno aniga iyo walaashay wax dhiba ma nagu haayaan maadaama wax baranayo aabigu igu kalsoon oo igu qanacsanayo macallimiinta rabaan meesha in aan wax barta leeyahay go'aan waxaan rabaa inaan dhakhtar noqdo dadka daaweysa isbitaal weyn furto gaariga wuxuu noqday astaan ka turjumaysa jacaylka aabahood nafurnimadiisa iyo aaminaadda uu ku qabo mustaqbalkooda safar kasta oo ay maanta galaan wuxuu xambaarsan yahay xasuus ah inuu jiray qof rumaysnaa awooddooda ka hor intaysan xitaa gaarin riyooyinkooda waalidka abaalmarintiisa ugu weyn ma aha waxa carruurtiisu maalin uun ugu soo celiyaan waa inuu arko iyagoo koraya guulaysanaya oo noqonaya dadka ay mar walba rajaynayeen inay noqdaan waayo mararka qaar safarada ugu waaweyn ee noloshu waxay ku bilaabmaan nafurnimada hal qof